mid kale waa tub qurux ku dhiig leh markii ay saaxiibeen Nairobi uu soo dhaweeyay abaal fiiri war ninkan inta qof waxaan kala yaabay qofkii abaal u galo xaar uu gudaa ninkii mikrofon u dhiibay ee noloshiisa wax ka dhigay wuxuu ugu abaal guday yaxkoo dadkii hore waa yaa wax ku falay TikTok maxaska yahay ana la fiirsada uu ku bahdilay TikTok haduu soo galay yaxkoo taas uu abaal guday ninkii mikrofon u dhiibay wiilo gabadha la dhaho maray kursi ku riixdo iyo maray bakoorada u qabato inay wax ka dhigtay muxuu u abaal guday waxay tahay male maxay gashaa waxay gudaman maalay ku fiican tahay male warma ninkeeda dhahay maxaa ku baray meel ku fiican tahay babajay waa musiibo saqajaan ah ummadana ku dhex jiro si kasto isku qariyana banaanku yaala dadku way wada arkeen qurux ku dhiiglu la saaxiibay waa la soo dhaweeyay kharasha la galiyay xafladaha loo qabtay waxa uu ninkan ku qaraabtaa lugtiisa oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi qurux ku dhiig leh waxyaabo isku qabsadeen waxa kamid ahayd lacagii umada masaakiinta ugu cunay qaliinan galayaa oo san galaynin walaalo umadahan lacagtoodu u celi qurux ku dhiig leh muraayadaha laga dalacday hal mar maaha laba mar maaha saddex mar maaha waana tuub ilaahay ka furtay mid kale wuxuu yaqaanaa ma taqaanaa markii uu ilaahay fashilo fiiri ilaahay hadaa munaafiq taa uu ku fashila mooti markuu ilaahay fashilo isla markii uu ogaado inuu dhiiqadiisa banaanka ay timid ee dadka arkaan isla markii story uu cogso quraan lugteeda waxa Allah wax ma laga qaban karo balaayo ku qaaday iyo lugtaanad nabaysita kalaba Allah ku daro ee ummadda islaamka ka fariiso dhalay haday maqlayaan naga qabsada afkeena iyo adinkeena ma geeyo saqajaanimo aabaheed dulmi aabihiis cid oohin ugu horeysana male qofkan walaalayaal waliga YouTube intaan joogay qof bina aadana iga qabsada ma dhihin tuuqaba ha noqoto ehelkiisa kala ha noqdaan